waxaa jiray mar ay da'diisu ahayd 15 sano inuu qoray buug gabay ah taasi oo aad uga helay raabarkii weynaa ee Tupac Shakur. isla waqtigaas waxa uu hees la soo qaaday kooxdii Tupac Shakur taasi oo ay soo qaadeen heestii caanka ahayd ee lagu magacaabi jiray kooxdii ka baxsanayd sharciga. waxaanu noqday qof caan ah magaciisii Napoleon sare ayuu kacay. laakiin markii la dilay fanaankii weynaa ee Tupac Shakur sanadku markuu ahaa 1996 Napoleon wuu iskaga soo guuray magaaladii waxaanu ka baxay kooxdii uu ka tirsanaan jiray isagoo u soo guuray New York. waxaanu yidhi sida tan: waxaan ahaa mid heesaha qora kuna luuqeeya. markii uu dhintay madaxii kooxda waxa bilaabmay in ay kooxdu isqaqabsi iyo xifaaltan ay dhexdooda ka bilaabanto kuwaasoo mid walba uu doonayo inuu xilka isagu qabto oo bedelo hogaamiyihii dhintay ee Tupac Shakur. kadibna waxaan go'aansaday inaan kooxdan iskaga baxo oon aas-aasto koox kale oo cusub. waanan ku guulaystay kooxda samayntoodii kadib markii aan soo saaray albano dadka aad u rahay kuwaasoo ay iga soo galeen dhaqaale aad u fara badan.